Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa galabta shir gudoomiyay kulanka isku duwayaasha mashaariicda kala duwan ee ka socota dalka si loo dardargeliyo howlaha hortibinta u leh xukuumadda dan qaran iyo adeegyada bulshada ee dowladda ee sanadka 2023. Shirka ayaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan waxqabadka xukuumadda ee dhinacyada mashaariicda iyo horumarinta arrimaha bulshada gaar ahaan barnaamijka xasilinta deegaanada laga xoreeyay khawaarijta oo ay hadda socoto dib u soo nooleynta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada isla markaana sanadkan qorshuhu yahay in si dhammaystiran looga hirgeliyo mashaariic horumarineed deegaanadaasi ay khawaarijtu ka curyaamiyeen adeegyada aasaasiga ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa bogaadiyay xiriiriyaasha iyo isku duwayaasha mashaariicda kala duwan shaqooyinkii ay soo qabteen isagoo tilmaamay sanadkan looga fadhiyo inay hirgeliyaan mashaariic ka badan intii hore oo ah dhinacyada arrimaha bulshada gaar ahaan deegaanada laga xoreeyay khawaarijta dadka deegaanadaasi ku dhaqan la tuso dowladooda oo dib u soo laabatay. Asra Bashiir Ali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.